haddaan culimmadii hore ka soo tagoon culimmadii dhaweed ee mucaasiriinta aan idinkaga warramo sheekh albani dhammaan waa taqaanaa baan u malaynayaa waa sheekha aad aragteen maanta marka la yidhaahdo xadiis la sheegaya la yidhaahdo sheekh albani baa saxiixiyey sheekha ilaahi subxaana watacaala ha u naxariistee wuxuu lahaa dukaan yar intaanu sacuudi carabiya u soo wareegin wuxuu lahaa dukaan yar meherad yar buu lahaa oo ku iibiyo saacadahana ku sameeyo oo quutulyomka reerkiisa uga raadiyo waxaa la yidhahdaa subaxii marka uu furo albaabka uu furo muddo 3 saacadood ayuu furi jiray dukaanka haddii intii maalinkaa reerkiisa ku filnayd uu ka helo uu laabi jiray albaabada uu xidhi jiray guduhu fadhiisan jiray waxbuu akhriyi jiray ilaa uu noqday dee maxay sheekha maanta aynu wada garanayno imaamka jaliilka maxamed alcawadi isna wada garanaysaan waa kuwayti akhris badnidiisa xilli waxaa jirtay laga joojiyey dhakhtarka inuu wax akhriyo waa indhihii baa madoobaaday maruu ka warramayo aad u jeclaystay documentary waxaa jira youtube ku jira aad ka wada daawan karaysaan wuxuu ka warramayaa xaaskiisa markay isguursanayeen ayaa wuxuu yidhi akhriskayga markay la yaabtay ayaa wax ii hibaysay oo i siisay meherkeedii markaasay waxay tihi waxaad ku gadataa kutubtaad jeceshahay kutubtaad jeceshahay ku soo gatay markaasuu wuxuu yidhi waxaan ku soo gatay ummahaatul kutub baan ku soo gatay oo waxaan ku soo gatay tafsiirkii iyo muxuu ahaa kutubtii ummahaatu sita iyo tafaasiirta iyo shuruucdoodii wuxuu dhin baan soo wada gatay marka uu tilmaamayo wuxuu leeyahay kutubtaasaan soo gatay waa jeclaanaysaan haddaad daawataan culimmadeennii soomaaliyeed sheekha waad garanaysaan yaa magaciisa garanaya sheekh shariif cabdinuur ilaahi subxaana watacaala ha xifdiya aabbihii ummadda soomaaliyeed muxadidkii ummaddeena weeye ilaahi subxana watacaala ha caafiyo markuu joogaa waxaan u soo qaatay waxaa jirta arday aad u fara badan uu wax soo baray waxay ka warramaan marka ay wax u diraan waxbaa laga yaabaa inay u diraan u tuuraan qofka loogu dhiibo sheekha marka uu tago wuxuu ku yidhaahdaa ma hebel baa ii soo dhiibay haa ama intaasaa miyaa la ii soo dhiibay haa ordoo laabo waxaad iigu soo gadaa kutub markastoo loo tago waa 2 sawir oo kala duwan sawirada intaan ka helay sawirada aad u fara badan baa jira mid walba oo laga soo qaado culimadu markay tagaan ay ku soo booqdaan gurigiisa waxaa loo tegay isagoo wax akhriyaya waxaan malaynayaa hadda 80kii inuu dhaafay 9 jir weeye sariirta waxaad aragtaan hadda agtaalo waa sariirtii cusbitaalka marmar baa la qabtaa uu aanu hadli karin haddana marka uu miirsado kitaabkii uu soo qaadanaya waa akhrinaya sheekha wada garanaysaan sheekh mustafa sheekh baa iga sheekeynaya ay saaxiibo ahaayeen oo muddo soo wada joogeen Norway ayaa wuxuu iga warramayaa sheekha nolol maalmeedkiisa wuxuu ku leeyahay sheekha ma arkaysid isagoo meel fadhiya oo aan kitaab gacanta ku haysan bal inta badan sheekhu wuxuu sameeyaa ama kutub buu dhigaysanaya at the same time haddana dhigaa waxa ugu jira si uu yani ka faa'iideysanayo waqtigiisa wuxuu iga warramayay okiyaalaha sababta uu xidhay dowladdii siyaad baraa xidhay sheekha xabsi buu ku jiray nalka isagu physicsku aad u yaqaan sheekha physicsku iyo xisaabta aad buu ugu dheereeyaa waa meelaha laga aqoonin sheekha aanu jeclayn inuu ka warramo wuxuu yidhi nimankii ilaalinayay xabsiga ayuu wuxuu u dirsaday fiilooyin iyo wax si uu uga dhex samaysto xabsiga nal uga dhex samaysto uu wax ku akhristo marka waa sheekha aad garanaysaan dee maanta markaad muxaadaradiisa aad degeysanaysaan aad garanaysaan yani aqoontiisu siday u ballaaran tahay inuu wax walba ka warrami karayo aad buu wax u akhriyaa